bannaanbax oo ah looga soo horjeedo dadkii madaxweynaha dalka Faransiiska Macron nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo diinteena suuban ee islaamka ah ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo waxaan dibadbaxan ka soo qaban qaabiyay culimadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca ee Galmudug iyo Puntland sidoo kale dibadbaxan ayaa lagu cambaareynayay in madaxweynaha Faransiiska waxaana ka soo qayb galay ardayda wax ka barata magaalada Gaalkacyo kuwaas oo saaka soo fasaxay goobaha waxbarashada dadweynaha iyo culimadii ka soo qayb gashay dibadbaxan ayaa socod dheer ku soo maray wadooyinka waaweyn ee magaalada Gaalkacyo kuwaas oo ay qaadayeen qasiidooyin ay ku amaanayaan qaar kamid ah culimadii iyo bulshada kale ayaa cambaareeyay madaxweynaha Faransiiska ay koona dawladda Soomaaliya ugu baaqay xiriirka loo jaro dawladdaasi xafladan quruxda badan leh annagoo ku codsanayna dawladda federaalka Soomaaliya waxaan baaqalka uga direynaa in ay safaaradda Faransiiska ay si degdeg ah dalka uga saarto 24 saac gudahood in dalka laga ceyrsho sidii waxyaalaha easy ah oo fudud ayaa waxa loo ceyrshay safiirkii qaramada midoobay si ogsoonahay asagoo wax dambi ah aan diinta islaamka ka galin ninkaan kale waxaan codsanaynaa in safaaradda dawladda Faransa in dalka laga ceyrsho nabi maxamed nabadgelyo naxariisi korkiisa ahaatay gaalka caayay waxaan leenahay nacarad ilaahay ha ku dhacdo ilaahay caradiisa ha ku rido diinta islaamkuna nuur bay leedahay wax qayirmahaya ma aha afgaal ku qayirmi mayso balse annaga ayaa waxaan la ka rabaa qiirada hadda aan u soo baxnay oo kaleeto inaan diinta ugu soo baxno ayaa la rabaa marka dadweynaha reer Gaalkacyo aad baan marka labaad iyo marka saddexaad ba idin mahad celinayaa gaaladana wixii nawaalo Macron afka uu qabo kaleeto qaba ama nabi maxamed caada ama aan qalbiga ka jeclayn ilaahay caradiisa ha ku rido ayaan leenahay maanta muslimiinta halkaan isugu yimid oo u soo bannaanbaxay dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay gubeen oo ay dab ku tuureen calankii Faransiiska nacaladna dusha kaga rideen ganacsatada Soomaaliyeedna waxay goosteen xabad xanjaa inaan laga keenin Faransiiska oo ganacsatada Soomaaliyeed aysan keenin waa nacaladayna waxaan leenahay uga baxayaa hambaliyo ummadda rasuulka oo nabigooda jecel oo sunniyiinta ah fayasubullaha adwan bighayri ilm ha caayinina kuwa ilaahay qeyrkiisa ay caawidayaan oo sanamyada iyo waxyaabaha xunxunka ah oo cadaawad intay idin qaadaan cadaawadii ay ilaahay ku dhacaan jahli dartiisa muslimiintu ha xasuusnaadaan markaan dareenkeena muujinayno inaan si nabadgelyo ku muujino dadka diimahooda iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin aan la caayin. After that, I am very sorry the president of France since he was against of our Islam. As we all of us we are Islam, or we are not taking for his violence for our against for our religion. As we know there are many religion in this world, but the religion of Islam is the only religion that we can say is the true in this world. We can say we of us as we are Muslim and we can't tolerate the president of violence, and we can say fall down everyone who is against it. gaar ahaan caasimada Gaalkacyo bulshadii weeye meesha waxa isku nimid nabiga calayhi salaatu wasalaam difaaciisa inaan nabiga u xalfadayno inaan difaacno inaan ka dhiidhino cayda nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan la qaybsano bulshada muslimiinta ah sida nabiga ay u difaaceen Saadqa Jakarta STN TV Gaalkacyo.